waxaa maanta Muqdisho ka dhacay kulan u dhexeeyay odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanada dhalinyarada iyo haweenka beesha Qalmashuwe iyagoo ka arinsanayay boob ay damacsan yihiin dad aan ka dhalan beesha iyagoo doonaya inay kursigaasi u tartamaan. Odayaasha, aqoon-yahanada dhalinyarada iyo haweenka beesha ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in boob lagu sameeyo kursigooda, iyagoo sheegay in kaliya HOP 266 oo u soo tartami karo qof beesha ka soo jeeda, waxaana intaa ay raaciyeen in kursigu uu yahay qoonda haween. anigoo ka hadlaya nabadoonka guud ee beesha Qalmashuwe wax badan meediyaha waa ka hadalnay, wax badan waa sheegnay. hadda waxaan halkan baaq ugu diraa dhammaan reer banaadir dhammaantiina waxaan idin leeyahay kursigan 266 oo qof kasta sheeganayo inaad ka digtoonaatiin oo dhinac ka martiin. kursigan beelow ku magacaaban yahay, beesha uu ku magacaaban yahayna waa la yaqaanaa, waa beesha Qalmashuwe. qofkii soo sheegto markaan kadib qofkii soo sheegto wuxuu la kulmo leeyahay. qof kasta xaflad waa dhigi karaa, qof kasta hotel waa tagi karaa, laakiin kursigan magaciisa dib dambe inaad soo sheegtiin ma loo baahna. wixii ka yimaada meeshaasiiti qofka soo sheegta ayaa xilkaas qaadayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo ku hadlaayo ku-xigeenka nabadoonka beesha Qalmashuwe wax la yaabo waayba nin kastoo reer banaadir ah in 266 inuu yiraahdo oo wax kaleba isku dareeni. waxaan leenahay dadkaasi xishooda waa la xishooda. waryaalka barkoodood banaanku daldalmeysay sida saan waay dheen sharaf midi ah. maxaa jira reer banaadir wax kasta maqan, hal kursiya maqan, kii aqalka sara maqan, kaasi ninka dooday male. maxaa idin tusi kursiga 266 maxaa idin tusi? waxaa idin sheegaynaa wixii ka yimaado annaka masuul makanihi beesha Qalmashuwe diiday annahay wax ka masuul male. waxaan sheegaynaa waxa way nin kasto afkiisa edba u yeelo. maxaa jira nin kasto iska waramooya aflagaado wax walba soo dhigo. laakiin waxaa idin sheegaynaa annaka maanta wixii ka dambeeyo annaka masuul makanihi wixii ka yimaado meeshaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan la hadlaynaa dadka kursiga beelweynta Qalmashuwe oo daa'iman culeyska soo saaray. anaga reer banaadir waa isnaqaana, si fiican la isku fahansanay, nin walba wuxuu galan waa naqaana, wixii barteen waa naqaana. markaan ka hadlayna kursigan oo ciidanka aad culeyska soo saarteen reer banaadiro ma aha ku oo sahal ku qaadi kartiin, ku sheeka Facebook soo dhigteen ku qaadaysiin ma aha. cilmi aqoon wax walba inaad soo sameeysiin oo idinku soo jihaadiina loo baahan yahay. haddaad jihaad ad hayni oo hadal wax ku qaadinaysna u malaysin kursiga ma aha kursiga sahalka lagu qaaday. anaga dad la yaqaanaan nahay, horaan u soconay, haddana waa sii soconaynaa. hadalkiina kuma hareeno. kursigeena anaga iskale ciddi u soo xad gudubtane xadkeeday mareysaa. banaadir isla joognaa, xamaraan isku joognaa. waxa idinka hadda iska dhaadhiciseen waxaad heli kartiin ma aha. indhaha furtiin waa idin fiican tahay. maxaa rageen iyo dumarkeena ma aha dad sahlan saa idinku u maleynaysiin. hore waa noola yaqaan, haddana waa noola baran doonaa insha Allah. dad beelaha banaadir ka mid ah oo sheeganaya kursiga noociisu uu yahay HOP 266. kursigaaniti waxa uu asteysan beesha Qalmashuwe. kursigaaniti aqoon, karti, dadaal, dhiirnaan, hufnaan dhammaan waa lagu keen kursigan. dad ayaa hadda waxay ku sheeganayaan inay iyaga leeyihiin kursigaaniti. sanado badan ayaa waxaa ku fadhisay beesha Qalmashuwe, waxaana kursigaani leh beesha Qalmashuwe. iyagaan isku tartami karo, iyagaan musharaxiin wato, kaliya waxaa ku tartami karo qof beeshiisu yahay Qalmashuwe. iyagaa musharaxiin leh. dadka qaar sheeganaya dhahayaan kursigaana naga maqan, kursigaana naga maqan. waxaasita ma jiro, mana soconayo. kursigaaniti sunnadiisu yahay HOP 266 waxaa leh beeshaweynta Qalmashuwe. waxaan halkan baaq ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga doorashooyinka. kursigaaniti waxaa leh beesha Qalmashuwe. waxay sheeganayaan inay dhahayaan guddiga doorashooyinka ayaa nooga fadhiyaa, dadaan nooga fadhiyo meesha. guddiga doorashooyinka iyo dadka meesha u fadhiyo waxaan ugu baaqaynaa in kursigaaniti HOP 266 uu yahay beelweynta Qalmashuwe. dadku gacan ducoonaya kursigaas anagaa leh inay arrintaas ka waantoowaan. intaasaa ugu baaqaynaa.
war-saxaafadeed laga soo saaray kulanka ayaa baaq loogu diray guddiyada doorashooyinka iyo madaxda ugu sareysa dalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaah. insha Allah waxaan halkan ku soo akhri doonaa shir jaraa'id ay qabsatay Tolweyne Qalmashuwe ku socoto xafiiska madaxweynaha mudane ra'iisul wasaare. waxaan rabaa inaan sheego insha Allah dad magaciina ku adeeganaya in ay rabaan kursi bob inay sameeyaan doorashooyinka golaha banaadiriga. kursi nambarkiisu yahay 266 ku xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane ra'iisul wasaare aday Soomaaliya idil ku aamintay adaa doorashada dhexda u xirtay adaa lagugu aaminay dalka amnigiisa iyo doorashooyinkiisa sida uu dhici lahayn yahay hufnaan iyo cadaalad inaysan dhicin bob kursi dad xaq ay leeyihiin in la siiyo xaq dad aysan lahayn xaq aysan lahayn in loo siiyo xaq in loo dhaco dad kale. okay waxaan rabaa midna ra'iisul wasaare inaa meeshan wax badan aad soo indha iyo u yeelato aragti dheeraada. midda kale waxaan rabnaa insha Allah anagoo wada dhan kursi nambarkiisu yahay 266 inaas qola kala lahayn waxa iska leh qolada beesha Qalmashuwe waxaan raali iskaaga nahay guddigeena inta shir jaraa'id qabsatay inaan anaga dhexdeen u tartana raali kama nihi mana ka noqon doono in cid kale nala keeno in nala tartamaan insha Allah. guddiga doorashooyinka dalka kuwoodii hore iyo kuwa haddan ku fadhiya waxay og yihiin kursi nambarkiisu yahay 266 in ay leedahay Tolweyne Qalmashuwe marna raali kama nihi mana ka noqon doono mana ogali in nala tartamaan dad kale. Tolweyne Qalmashuwe ayaga leh musharaxiin ayaga isku tartamaya ayaga raali iskaaga ah ayaga wax walba diyaar isku dhexdooda. digniin waxaan u digayaa kuwa lagu faanaya iyo kuwa ku faanayaba kuwa lagu faanaya waxaan ugu digayaa xilka ay dawladdu hayaan inaysan dad ugu boobin dad kale kursi ay salahan asu siinin. waxaan u digayaa kuwa faanaya ee ku faanaya xilka loo haayo waxaan u sheegayaa xilka ay ayaga sugayaan in loo haayo looma haayo ayaga waxa loo hayaa Soomaaliyeed oo dhan. waxaan rabaa inaan u sheego cilmi iyo aqli iyo aqoon iyo juhdi iyo dhiig inuu ku baxay kursi 266 ee beesha Qalmashuwe maanta ku fadhiso ayna diyaar u tahay shalay intay bixisay toonjibaarkeeda inay bixiso. wabillahi tawfiiq. waxaa bilowday doorashada golaha shacabka iyadoo maamulada qaar ay maanta qabteen doorashada kuraas ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.